waxaa shirkay ku saabsan yahay maanta dhacda ayaamahan ilaa shalay la wareejinaya baraha bulshada oo ku saabsaneyd reer masaakiina oo dad shuftaha intay u dhaceen soo duubeen asal ahaanna ka soo jeeda waxyaalaha la yiraahdo TikTok iyo dadka isku caaya ka soo jeeda muhiimadda marka aanu u furay shirka waxa weeye dadkii dhibaatooyinka geystay oo booliisku dhacdadu waxay dhacday xalay habeen hore lama ogaan shalay waxa la ogaaday xalay booliisku xalay ilaa intay ka ogaadeen ilaa saaka waxay ku jireen shaqo dhacdada waxa geysay dad tirada geysatay waxaanu haynaa 5 qof inay ahaayeen waxaan rabnaa inaan cadeyno 4 qof oo kamid ah inay xiran yihiin oo sharciga la horkeeni doono hal qofna uu maqan yahay insha Allah isagana aan rajeynayna inaan soo qabanno waxaan rabnaa marka dhowr kelmo inaan la wadaagno bulshada waxaan u maleynayaa bulshadu waa dareemi ka dhacdada foolxumada ay ku hayso bulshada dhexdeeda iyo dalka iyo dadka iyo abiyuuska ay dadka ay u geysanayso haddana dadka dhibaatadaas sameynaya waxa laga yaabaa inay yihiin dad TikTok ah oo waxyaalahaas TikTok dadka ku dhexmara ay gaarsiiyeen inay dhibaatada inta leeg bulshada ka dhex sameeyaan waxaan rabnaa inaan uga digno cid kasta oo ku saabsan waxyaalaha anshax darrada ah iyo waxyaalaha bulshada u keenaysa khalkhalka iyo dhibaatada u keenaysa ama samaac darrada inaan haddaan booliisnahay meel adag uga soo jeensano horena aanu la dagaalami jiray haddana aan la dagaalami doono marka waxaan leenahay muhiimaddu waxay tahay bulshada inaan u cadeyno in dadkaasi xiran yihiin sharcigana la horkeeni doono bulshaduna ay sidaa u ogaato aad iyo aad waxaan soo wacay bulshadaana soo wacday qaybaheeda kala duwan qof kasta oo wax qirada ama qof kasta oo wanaag ka talisa uu ka dhiidhiyay waxay ku ahayd arin ku fool xun dalka iyo dadka oo qof walba damiirkiisa damqaysa laakiin waxaan rabnaa inaan ugu bishaareyno inay sharciga hor imaanayaan 4 kamid ah inay xiran yihiin midka kale tan aan ku rajan weynahay inaan ku soo daro insha Allah bulshaduna sidaa ay ogaato muhiimaddeedu intaas weey waa kulli sharciga hor iman doonaan laakiin muhiimaddu waxa weeye kulli anagu booliis baan ahay waa wareysanay waxna naga ma qarsoona information koodana waan helay sawirana waa iska duubeen guriga tegistiisa markay tagayeen dad qarsoon ma ahayn oo dad bay weydiiyeen saasay ku tageen haddana waa qiraalo maba ankirsanay iyagu inay guriga tageen albaabka fureen kiiskana ay sameeyeen marka insha Allah waa qiraalkooda wuxuu iman doonaa maxkamaddu iman doonaa laakiin anagu waxaan rabnaa inaan cadeyno dadkii geystay 5 ahaayeen 4 kamid ah xiran tahay insha Allah sharcigana ay ka soo muuqan doonaan haddii Allah idmo intaas aan rabnaa si fiican u sheego